السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوا صاحبada qiimaha badan meel kasta aad joogtaan. Muuqaalkan maanta waxaan ku baran doonaa hadii aad halka noqda sida muuqaalka loo save gareeyo dibna lagu soo ceshado. Marka qaar waxa dhici karta adiga muuqaalka ku dhex jira in computer ka hadama ama hawl ay qabsato. Isla markaana waxa u baahan tahay in aad muuqaalkii meel ku save gareysato hadhow dib u soo ceshato. Haddii halkan ku faahfaahiyo adiga mar muuqaal sameynaya waxa ugu dhacay waqti ayaa ugu dhacay ama saaxiibka waa ku yeer ama computer ka hadamay. waxaan u baahan tahay muuqaalkaas hadhowto inaad dib u hagaajiso ama waqti kale ka dhigato. haddaba haddii aad computer ka kacdo ama aad dimiso muuqaalkii uu ka lidoobayaa markaas kale waxa la sameeyaa computerka ayaa meel kamid ah lagu save gareystaa markii chance u heshana waa loo soo laabtaa isla marhaantaasna dib ayaa loo bilaabaa hawsha. haddaba haddii aadan aqoon u lahayn waa ka sii daranba. maanta waxaan baran doonaa adigoo isticmaalaya Adobe Premiere Pro 2020 qaabka loo save gareeyo muuqaalkaaga hadhow dib loogu soo celiyo. ugu horreyn waxaan soo kicin doonaa Adobe Premiere Pro CC 2020. marka ugu horeysa waa in aad meesha ku save gareysanayso marka hore magaca u bixisaa meel fiican ka taxadartaa si hadhow markii aad computerka u ka hadamo ama cilad kale kugu timaado aad dib muuqaalkaaga ugu raasato. meesha ugu horeysa laga xukumo muuqaalada waa halkan new project ayaan ku dhufanayaa. haddii waxyaabo kale aad sameynaysid halkan ayaad ka sameynaysaa. waxyaabahan oo waxyaabihii ugu dambeeyay oo la sameeyay hadda halkan waxa ku qoran wuxuu ku leeyahay 2 minutes ka hor ayaa isticmaalaysay kan ku xigana waa 2 maalmood ka hor ayaa isticmaalaysay kan waa 4 maalmood ka hor kan waa 5 maalmood ka hor kan ugu dambeeyay waa 10 maalmood ka hor ayaa isticmaalaysay. haddii aan ku dhufto muuqaalkan ama kan ku dhufto 7 maalmood ka hor waxaan isticmaalay ayaa soo baxaya balse uma baahna waxaan ku dhufanayaa new project. halkan waxaan u bixinayaa 2021 waxa oo oranaya waxaad igu kaydisaa location-ka anigoo dooranaya desktop-ka. hadda meesha uu yaalo magaciisu waa 2020 location-kiisa meesha uu yaalana waa desktop-ka. waxaan oranayaa okay meelahan hoose waxba ka bedelay okay iska dhig. hadda waxaan doonayaa muuqaal degdeg inaan sameeyo. 3 muuqaal ayaan isku kabahayaa. saddexdan muuqaal ayaan isku kabay. waxaan doonayaa in aan si degdeg u save gareeyo. saddexdan muuqaal hadda muuqaaladu way jarjaran yihiin balse waxa ka dhiman waxyaabo kale waqtiga ayaa ku dhacay. tusaale ahaan waxaan doonayaa hadhow muuqaalkaas dib inaan u soo hagaagsado ama waqti kale aan sameeyo. qaabka ugu fudud waxa weeye adigoo meel kala tagin waxa imaanaysaa halkan waa ku dhufanaysaa waxaad dooranaysaa yes. haddii aan noo tiraahdo muuqaalkaas dib dambe u arki maysid waxaan oranayaa yes ama waxaad imaanaysaa halkan file ku qoran tahay halkan waxaad ka xulanaysaa save ama waxaad ka xulanaysaa halkan save as. wuxuu ku leeyahay xayaa kugu save gareeya mar rabo halkan ayaan ku dhufanayaa. labada qaab way taamin doonaa. halkan ayaan tagayaa waa mid ugu fudud waxaan oranayaa save as ama haddii aad doonayso inaad ka baxdo computerka dhanba oo aad ka iska xidho oo aad ka tagto halkan ayaa ku dhufanaysaa. hadda waan ka soo baxay waa kan 2020 waa la save gareeyay. 2 jeer ayaan waxaan siinayaa click. wuxuu dib geyn doonaa muuqaalka hadda si degdeg ah. waa markaan isticmaalay save ama save as oo isku mid ah. open project 2020 ayaa la furay ee ku leeyahay. hadda muuqaaladii waa kuwaan oo waa la dulgeeyay. bal ka waran
haddii aan ku sameeyo isagoo saas ii ah ayaa waxaan ku dhuftay halkan waxaan doortay no dib dambe muuqaalka u arki maayo. haddii hadda aan ku dhufto 2020 waxaa la dul geynayaa muuqaalka hore balse hadda kii ugu dambeeyay oo labada muuqaal ahaa dib dambe ma u arki doono.